madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu booqasho iyo kormeer ku tagay qaar kamid ah goobaha waxbarashada ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha oo booqday dhowr iskuul oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo isla markaasina kulamo gaar ah la qaatay macallimiinta iyo ardayda iskuulaadkaasi ayaa sheegay in wax laga bedeli doono manhajka ay ku baxaan iskuulaadka magaalada Kismaayo ee guud ahaan deegaanada Jubbaland. waxaana sidoo kale madaxweynuhu sii raaciyay in sidoo kale ay rajeynayaan in manhajka guud ee Soomaaliya wax laga bedelo sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. waxaana uu raaciyay maamulkiisa uu xilligan u istaagay sidii uu u hormarin lahaa dhinacyada waxbarashada asaasiga taas oo ku tilmaamay inay qayb ka tahay booqashada uu ku tagay iskuulaadkani. waan ku faraxsanahay inaad maanta nasiib u heshaan inaad tiin arday daayara oo waxbarasho haysata oo maanta kuwa badan oo silacsan oo waxbarasho haysanin ama waalidkoodu u tabar waayay ama meelaha ay joogaan ay qolyo dhib badan joogaan waxbarashada ay leeyihiin intaba inaad aad uga nasiib badan tihiin. qofku wuxuu qiimo ku leeyahay waxbarasho iyo inuu wax barto. jahligu qofkiisa wuu gabaa. jahligu waa wax u daran qofka noloshiisa iyo koritaankiisaba. cilmi la barto waxaa la cilmu sixir baa ugu xuno isaguna xaqa inuu qofku garto wuu garansiin karaa. waxaad ku garanaysaan saxarada fircoon waxay garteen cilmigooda cilmu sixirkoodii wuxuu u sheegay waxaanay ku jiraan inuuna waxaan muuse la yimid inuun ahayn sixira inuu wax kale yahay cilmigoodii waa baray. yani waa cilmi la bartana cilmu sixir baa ugu xun. garawaaye imse degmuu yahay imlaqa gobol iyo kan taariikhda waxaa laga yaabaa taariikh kale oo aynaan shaqo ku lahayn in la dhigto laakiin manhajkii waxaan rajaynayaa in kulligii dib loo saxayo haddii ilaaha idhaa oo manhaj ay Soomaali leedahay oo manhaj Soomaaliya luqadu doonaha ku baxay in la dhigto haddii ilaaha gaar ahaan hadda maadooyinka dhabidii anfacaya oo maanta taariikhda wadankiina iyo geesiyaashii soo jiray iyo halgankii shalay wuxuu ahaayo wadankani maraaxishii uu soo maray oo dhan in la garan waayo ardayga dugsiga hoosena manhajku qaato oo ku mashquulo iyo muqarrarka ama Sacuudiya ama meel kale ama Kenya ka dugsiga sarana sidaas oo kale uu noqday waxay noqonaysaa wax oo dhibkeeda iska leh. marka taa manhajka iyada insha Allah waan saxayna waana wax xukuumadda iyo dawladdu ay ka wada hadleen in bal la sameeyo saxitaanka manhajka oo ay la helo syllabus iyo manhaj Soomaali ay leedahay ardaygu uu ku soo garanayo taariikhda dhulkiisa uu garanayo wadankiisa dadkii soo maraya. waan isku dayaynaa inaan sameeyno bal wixii min xadaraasi ah ee loo heli kara ardayda iyo macallimiinta wixii lagu caawin kara intaba inaan cid kasto la kaashan karaan la kaashano. ma helo minxooyinka daraasaadka ama ha noqoto daraasa culya ama ha noqoto daraasaadka jaamacadda oo waxa laga yaabaa waxa Soomaaliya soo gaaraan inuu iska yaraado laakiin waxa shayga asalka ay tahay wixii hadda kadib aan sameyn karno insha Allah waxaan isku daynaa inaan iskuulada gobolka u qaybino. booqashada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ku tagay qaar kamid ah iskuulaadka magaalada Kismaayo ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli iskuulada deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale guud ahaan dalka Soomaaliya ay muuqanayso in aysan jirin manhaj ay ku midaysan yihiin guud ahaan goobaha waxbarashada ee dalka Soomaaliya. Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Kismaayo.